soomaalidu waxay ku maamaadaa malo dembile dembina cadaab leh. dadka soomaaliyeed gaar ahaan laamaha warbaahinta iyo dadka isticmaala websaydyada sida gaarka loo leeyahay iyo social mediaha waxay baahinayaan warar aan sal iyo raad toona lahayn. wararka ku saabsan in hub fara badan lagala baxay goobihii ay ka baxeen tababarayaashii ka socday dalka imaaraadka carabta, waxaan leeyahay wax ka jira ma jiraan. arrintaas waxaa baahinaya suuqna u yeelaya kuwa shaqala-aanta ay hayso ee diidan hanaan dawladnimo oo xasiloon oo ka hana qaada Soomaaliya. kuwa danaha gaarka ale gaar ahaan wakaalada wararka Reuters shaqaalaheeda jooga magaalada Muqdisho si hadalkooda uu noqdo mid suuq gala ama u iibsama, waxay isku daygoodu u yahay dagaalka ay kala soo horjeedaan dawladnimada Soomaaliya, dawladda federaalka ee Soomaaliya. laakiin Cabdilcasiis waxaa lasoo bandhigay qoryo magaca xoogga dalka Soomaaliya uu ku qoran yahay, iyadoona kaliya aysan soo bandhigin wakaaladaasi aad sheegtay, laakiin baraha bulshada lasoo dhigay websaydyada qaarkood maaragtay kuwooda lagu kalsoon yahay ay soo daabaceen. marka maxaa ku beeni kartaa arrintaas? waxaan ka xumahay, annaguna waxaan leenahay tiro ciidamo ah oo difaaci kara sharafta iyo karaamada shacbiga Soomaaliyeed. waxaa lasoo bandhigay, waxaad leedahay waxaan jeclaan lahaa in shacbiga Soomaaliyeed hadalkaasi uu caddaado. waxaad noo sheegtaa goobta lagu soo bandhigay hubka la sheegay in lagu kala iibsanayo suuqyada magaalada Muqdisho iyo halka lagu soo bandhigay. waa dhici kartaa in qori ka tirsan ama uu haysto sarkaal ka tirsan ama askari ka tirsan ciidamadeena numberka maalintii registrationka la sameynayay la qaaday, ama muxuu ahaa kuwa social mediaha la dhex wareegaya qoryaha afkooda, laakiin inta kale jawaanka ama marada lagu soo maxaa lagu cadayn karaa in ay yihiin qoryo laga xaday ama laga qaaday xarunta General Gordon ee magaalada Muqdisho. anigu waxaan qabaa hadalkaasi inuu yahay hadal been abuur ah baahinayaan laamaha warbaahinta qaarkood. waayo Cabdicasiis, magaalada Muqdisho ma waxaa ka jira suuqyo furan oo hubka lagu iibiyo? Muqdisho ma waxaa laga heli karaa dalalka Afghanistan, Iraq, muxuu ahaa Syria, waxaa laga helaa dalka Mareykanka oo idaacada laanta afka Soomaaliga ee Voice of America uu ku yaala ayaa lagu kala gataa hubka iyo magaalooyin waaweyn ee ku yaala. marka maxaa diidaya in magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliyaba oo ay ka jirto dagaal sokeeye, laakiin suuqyo ganacsi oo aan haysanin ogolaanshiyaha muxuu ahaa dawladda dhexe ee Soomaaliya in laga heli karo. burburkii dawladnimo ee Soomaaliya waxaa Soomaaliya ka furmay suuqyo laga heli karo hubka. mar Soomaaliya waxaa ka talin jiray hogaamiye kooxeedyo, mar waxaa ka talin jiray maxkamado islaam oo ay ku hoos gabanayaan kooxaha nabadjiidka ah ee al-shabaab. mar Soomaaliya waxaa ka talinaya dawlado federaal ah oo ku meel gaar ah. maanta waxaa ka jirta dawladda federaalka Soomaaliya. xeerar iyo shuruuc aa loo samayn doonaa maalmaha dhow ee taariikhda Soomaalida. waxaan rajaynayaa in shacbiga aan lagu marin habaabinin, wax kalena aan looga dhigin suuq lagu ganacsado hubka inuu ka furan yahay magaalada Muqdisho iyo in kale. xeradii imaaraadka uu ka tagay magaalada Muqdisho ma jiraan haba yaraatee wax hub ah oo lagala baxay? xerada General Gordon ee ku taala ama ku degan isbitaalkii xoogga dalka Soomaaliyeed ama u dhaweyd kuliyadda ciidamada jaalasiyaad waxaa gacanta ku haya saacadan aan kula hadlayo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. mana jiraan ciidamo ka madax banaan dawladda federaalka Soomaaliya oo gacanta ku haya xeradaas iyada ah. wixii ka dhaca mas-uuliyadooda annagaa wax nala ka weydiinaya. Cabdicasiis xildhibaan, imaaraadka laftooda waxaa la sheegay in ay markab ku rarteen hub iyo qalab kale oo ka yaalay Muqdisho. warkaasi ma xaqiijin kartaa? wax diidaya ma jiraan. haddii ay jireen qalab muxuu ahaa ay tababar ku siinayeen dawladda federaalka ee Soomaaliya, marna ma hor istaagin, maadaama markii horeba iyagu ku yimaadeen kaalmo dawladihii tan ka horreeyay ay weydiisteen muxuu ahaa in ciidamada Soomaaliya ay tababar siiyaan. dawladda federaalka ee Soomaaliya iyadoo ilaalinaysa xeerarka iyo shuruucda caalamiga ah ee diblomaasiyadda, mar haddii ay timi in ciidamadoodu ay ka baxaan xeryihii loogu talagalay in ay tababarka ku siiyaan, wax diidaya ma jiraan qalabkii yaalla inay